بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مهض نبعين بدن بولاي نسين إنه مهض غنها عافماد له نبض له هؤلاء الرسل والجرياء عينو قبصنا له تذكرنا إلى هاي التشويش كي يشكل كسر السود يعني معلم بعض قدم بس وما تم ذا السن ومري تشدر كود السنة إلى هاي نبصنا الحمد لله مات يريد أن أريد إلى وزيرين أضي وحوي دورشة مقلي لبعض دورشة سوريين ولا هيدين وحيد عي وحن كبر إنه واحد الله أقبل ست طورة يدور واحد هذان مركا حسابته وسان تحاسب كلا عدواني وحنا يدعونا كلا إخواني مركا واحد مدة مركا دورشة الدنيا سوريين ولا حساب الله إنه حسابته وكراه أنا كافي أنا كاهر وأسر أو هو عادي وحين صوم مريض أنت دوشة مسار ما أنت عرفت هالك عرسك أنا مركي عرفت أنا هرجسنا أنا أنت قلنا أنا وحلم قامي إن أوحره أو ما أنت ترتكع عن قرين عبد الرحمن صوابها أنا ويا أبو الشيخ وحن آذي أبوك مغضقية إن أنا إستوى أول ورين أو حمد ربي تلاواصي وانقاتي قروحة إسراع يدنك الله الله مضبيان مركو هراء مقالة هرقيسو أس خلاف سنة دورشو ديقان وتقلبيسو أنا وشوذا مبعي كرتا يودا أس خلاف سنة يسير ريرس أنا يكاشو دورشو لبيذين أودي اللغة marka suuqa la eego laba anrbaax kara yar joog iyo dib u noqon karayana si walba inuu ku sii daayo ku durdursaan magaalada ana tiidi aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan oo maanta wad guuleysatay oday qaatay wixii waad noqotay maanta adaa xilka magaalada qabanay xisbi iyo inamada kale ma diidana ummaduna saasar hal ku tahay mid kale ayaan إيه ورسالة واحد ورني كان الحين أتذكر عدسي تهلت شابي حب بلقى كرتينا بلقى هل عندك وسون أنت يا حكومة الرجال ورشق إليه عبد الرحمن قع أنت الكرات من القرية وحنا ومنها كفرين وحنا لا سياسة على سنبا ما فرق عرنت لك ما كعاية سن يدا أول شقين سان لم يدري على تبتشو أنا سوى شقسا إيه أنت كلام حقي كلام تاني قارسية أنا ما هتتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مدحونا جمهورية الصومال ودنا موسى بيحي عبدي ما يقع عصوبة نقونا خميسة إن شاء الله تعالى عبد الكريم أحمد موبي يبقى صحافتنا بتشكتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرف الموت أنا نقول أن كانوا يسوون معنا runtii maantana waan sheegay waan ka hadlay Cabdikariim colaad naga dhaxaysay ma jirin 30 sano oo saaxiibnahay ilaa 1999 waxa ay ku sigaana kaaga fiican yaaniga kaaga fiican aniga waxaan lahaa waxaan dhamaystirayaa qabiyooyinkii yaalay Cabdikariim ma wuxuu lahaa waxaan sameeyay magaalo cagaaran waa tartanka dadku waxay u dooranayeen 290 ku baa ka odayeerkiisa waxay soo dooranayeen 17 xildhibaan 17 xildhibaan ay iska dooranayeen maayir oo hada cilmiga madaxweynaha inta soo dhowr kulan qaadanay markii dambeena ka qaatay go'aankii ugu maanta ugu joog iyo duruufo badan leeyahay runtii siyaasiguna ma aha kacrooda waa wax ka soo dhacayda xalkeeda ma dhameeya anigoo madaxweynaha iyo dalkayga iyo magaaladayda qadaynaya inaan Cabdikariim la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha deegaankana la shaqeeyo aan oday la shaqeeyo noqdo kamida xubnihi la soo doortay labadii waa baad ku maamulaya madaxweynaha baad ma santay assalamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysaa madaxweynaha waan mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaqo soo diray madaxweynaha arintan soo dhex galo sidii wanaagsaneyd ee madaxweynuhu wuxuu isaga saaray inuu arintan galo hargeysa mideeyo ay midnimada hargeysa doorashaan u galay
waxay ka bilaamaysay in xildhibaanada 17 la doortay madaxweynahoodii odaygoodii inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka sharciga loo noqdo haddii la idhaa xildhibaankii ugu codka badnaaba noqonaya maayor sharciga ma waafaqsana sharciga waxay ku waafaqsan tahay in 17 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabatana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jecel inta badan ixtiraamay oo tixgeliyey baaqa anagu aan dirnay waxaa baaq aan ku doonaynay in bal dadka faraha badan ee maanta markii ugu horeysay si ku xora qabyaalad u codeeyey ka codeeyey xaafado iyo degmooyin kala duwan qofkii ay u codeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrintaa xil iska saaro runtiina madaxweynuhu dhowrkaa cishii tegey si mas-uuliyad leh madaxweynenimo leh odaygii qaranka ah ayuu arrintaa u galay una dhamaystiray walaalkii cabdiraxmaan maayarkaygii hore weli waa maayar isagaa weli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaa tartamo isagoo xaq u leh marka horena sheegayna hon lahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uu iga codsado waxaan madaxweynaha uga mahadnaqayaa inuu danta hargeysa ku horreysiiyey danaha xisbiyada waayo markaad eegto arrintan siduu u maamulay wuxuu u maamulay si lexjeclo leh hargeysa jacayl leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisaba jecel waayo hadduu indho xisbi ku eegi lahaa xaajadu halkan ay caawa soo gaadhay may soo gaadhin madaxweyne kaaga mahadnaqaya aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaya cabdiraxmaan maayar aad iyo aad bay mahadsan tahay waxaad qaadatay go-aan geesinimo leh waxaad ixtiraamtay madaxweynahaagii waxaanagana noo farxada waa aragnimadaadii inaad golaha kula jirto ood nala joogto waxaad insha allah noo noqon doontaa odaygii golaha deegaanka iminka dewi kumaha waxaad noqon doontaa odaygii hargeysa waxaad noqon doontaa maayarkaygii hore saddexdaa taytalna saddexdaba ixtiraamkooda waad naga helaysaa insha allahu tacaala shaqo wanaagsan baynu wada qaban waxaanu ka faa'iidaysan aragnimadaada aad iyo aadna waan kuugu mahadnaqaya